13 qof ayaa ku geeriyooday 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo ka dhacay duleedka magaalada Gabiley kadib markii ay isku dhaceen gaari la kurusale iyo gaari noohaw waxa meydka iyo dhaawacaba la geeyay isbitaalka guud ee magaalada Gabiley wasiirka wasaaradda warshadaha xogayaha fulinta dawladda hoose iyo mas'uuliyiinta nabadgelyada wadooyinka oo arintaasi ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin dha'iqatul maut waxa maanta ka dhacday gobolka Gabiley geeri naxdin leh oo laba gaari oo isku dhacay shil gaari ka dhalatay meydkii halka ayaa la wada dhigtay waa dhowr iyo 10 qof inta wararka taale emergency-ga ku jirtaana waa dad kale marka geeri naxdin leh maanta runtii gobolka taala iyo Somaliland waxa ka tacsiidinayna dhammaan dadka halka ku dhintay ee ku naf waayay shilka foosho xun leh ومركي كوغادن أركو تدين تالك أو ترى تالك ومركي لي نفط ملك جوا بحلو بدوي وضياش بابورت وعذاك الساعة قف مشكلته إلى هي كتير كفرتها واحد لكن مشكلته مو بدن وحويتك وضياش خبرات بدن لهاي وليد الجديد كوضع أما تجورد الأنبوسركا أما جورد النوعين كيف برفت كلولي هاي تاسو دعدين اللي بدأ جاري أو كسرعة حوالي أو سرية أسود عين هل كاسو أي بتبادك الرواية لما تدخل صارنا واحد أو واحد انتبه نقطة واحد ودي يا وليد الجديد كوضع لو سو ديو اللي هاي وضوها كحياة وشقة إن أي عيدا كترافق أي وحكا قبطان وقدر تستوعب دعاء وقدر شو بعد عين شو كاسو ماشي المشي ده وعمله هذه ولو قاعد يجي حضن أنا كنعي من القول كمان تجيبين يعني شوفوا ما أقول حنا أنا قاعد بقى طيبون سود عين وحنا قد يجي لنا وضيع شطر أولين سيد الدهر ما تدرك أصلا إن أنا أصلا إن حوارها هم يكون شلال سامين إلى الشلال المشي ده وعليك أنا إن كتبت ولا أنا ولا طلاب شعبي وفقاد sidoo kalena dhaawacii shilkaasi ka badbaaday oo aan wax ka weydiinay sida uu shilkaasi u dhacay ayaa waxay yiraahdeen iga sheeg kartaa Muxtaar Ibrahim baan iPhone keena tiifin adoo iga raali waliba dhaawac baad qabtay yowda no hada nu soo baxday no gaar dhaawacna no hada yaa nu soo baxday haye meel looga celiyaana ma jirin saadaas ku dhacmay waa shilka sababtay la kursi ka saaray waa caafimaad qabaan la kursi ka saaray la kursi ka saaray kursi qof ka saaray la kursi tooma ka saaray سير براسه بالعين لا حبي حاجه ضرب براسه لكن يا حاضر ما حسوس براسه على سوق شيفون بقى لسوق shilkani ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee 13 qof ay ku geeriyoodaan isla markaasina ka dhaca magaalada Gabiley Muxtaar Ibrahim Hon Cable TV gobolka Gabiley